السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا كحرن كانالكينا إيش عيارها كسو دوادا muuqaal cusub oo ka tirsan taxanaheennii wararka ciyaaraha kooxda Juventus ayaa shaqada ka eryday tababaraheedii Andrea Pirlo kadib markii uu shaqadan hayay muddo hal sano ah kooxda ayaa soo saartay qoraal ay ciwaan uga dhigtay sidani nasiib wanaagsan Andrea Pirlo eryadan ayaa imanaysa kadib markii kooxdan ay ku guuldareystay inay qaado koobka xilli ciyaareedkan dhammaaday markii ugu horeysay muddo 10 sano ah sidoo kale waxa kooxdan lagaga reebay koobka Champions League wareegga 16 kooxda Juve ayaa waxa ay qoraalkeeda ku soo dartay hadalkan soo socda Pirlo waxa uu kaliya hadda bilaabay marxaladii ugu horeysay ee waayo tababarinimo oo aan shaki ku jirin inuu noqon doono mid aad u fiican Andrea Pirlo ka ciyaaryahan ahaan waxa uu ku soo raaxaystay xilliyo wanaagsan oo uu la soo qaatay labada cimlaaq ee AC Milan iyo Juventus waxa uu sidoo kale xilli ciyaareedkan dhammaaday Juve ku hogaamiyay koobka Super League iyo koobka Italia si kastaba xaalku hada Juve waxay ku guuldareystay hadafkeedii ugu weynaa ee ahaa ku guuleysiga championkeedii ugu horeeyay tan iyo sanadkii 1996 kadib markii ay ka takhalusay kooxda Porto kooxda reer Turin ayaa sidoo kale ku guuldareystay inay qaado isku deetadeedii tobnaad oo xiriir ah kawsi darana waxay qarka u saarantay inay ka hadho soo bixida koobka Champions League xilli ciyaareedka soo aadan Pirlo ayaa isna dhankiisa ku soo qoray Instagram-kiisa hadal nuxurkiisu ahaa xilli ciyaareedkii koowaad ee tababare ahaan oo ahaa mid kan uu soo gabagaboobay hase yeeshee wuxuu ahaa mid cajiib ah sanad ka hor markii la magacaabayay shaqadan waa khatarta aan u bareerayo laakiinse kama qoomameynayo oo haddii haddaba dib loo celiyo kama laabteen go'aankaasi kadib markii la shaaciyay bixitaanka Pirlo in yar kadib waxa isla maanta oo Jimcaha la magacaabay tababare Massimiliano Allegri oo isagoo hore u soo tababaray kooxda Juventus sanadii u dhaxeeyay 2014 ilaa 2019 markaas oo uu qaaday 5 horyaal oo xiriir ah caydinta Pirlo waxa ay imanaysaa kadib taxana tababarayaal ah oo muddadii ugu dambeysay ka tagay kooxahoodii ama se laga beeriyay Zinedine Zidane ayaa maalintii shalay ahayd iskaga tagay shaqadiisa Real Madrid kadib xilli ciyaareed bilaa koob ahaa qaybta commentiska ayaad ka helaysan linkiga muuqaalka aan kaga hadlaynay bixitaanka Zidane wixii sababay cid lagu wado inay bedeli doonto tababarayaasha sidoo kale kooxoodii ka tagay waxa kamid ah Antonio Conte oo isagu maalintii Arbacada ahayd iskaga tagay shaqadiisa Inter Milan kadib markii uu ku hogaamiyay horyaalkoodii ugu horeeyay tan iyo 2010 dhanka kale waxay soo taray warar sheegay in Mauricio Pochettino uu dib ugu laaban doono kooxdiisa hore ee Tottenham kadib bilayar oo kaliya oo la qaatay kooxda Paris Saint-Germain saacaduna waxaan muuqaalkan oo aan kaga hadlaynay caalinta tababare Andrea Pirlo iyo bedelkiisa inta ay ku eegayay fadan haylaw inaad muuqaalka la wadaagtid asxaabtaada sidoo kale like saartid ku cajabiyo hana hilmaamin inaad subscribe saartid daartidna gabalka digniinta waa inay muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh